جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. الله 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 أكبر الله 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 أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. إسلامنا جاء ليبقى السلام ضياء ونورا في دنيا الظلام. إسلامنا جاء ليبقى السلام ضياء ونورا في دنيا الظلام. فالعدل هنا نام بين الأنام لنحيا جميعا في ظل الوئام لنحيا جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع عن جعله إن شاء الله تعالى إنان وحي إلهي قوة فجيدين كيدا هذا سيدي هريب الله يدين كل شيء وحويان ففروا إلى الله أما الفرار إلى الله إلهي الله عرر تبارك وتعالى. وحانوكسونا هاي الله تبارك وتعالى iyo awoodiisa iyo qudradiisa in aan laga fakan karin oo ruuxu isku daya inuu ka fakado inuusan sinaba uga baxsan karin. qur-aanka kariimka meelo ka mid ah buu allah tabaaraka wa tacaala ku tilmaamay markii laga warramayo fi suurati aljin hadalkii dadkii muslimiinta ahaa ee jinka ahaa ee qur-aanka dhagaystay hadalkoodii markuu alla sheegayay tabaaraka wa tacaala waxaa ka mid ahaa waxay yidhaahdeen wa annaa danannaa an lan nucjiza allaha fi lardi walan nucjizahu haraba. waxaanu ogaanay bay dhaheen inaanaan ilaahay caajis gelin karin dhulka dhexdiisa cararna aanaan ku caajis gelin karin. bimacnaa ilaahay inaanaan ka fakan karin oo dhulka dhexdiisa aanaan kaga fakan karin baan yaqiininay. carar aan cararnana inaanaan ilaahay kaga fakan karin tabaaraka wa tacaala. marka ilaahay lagama fakan karo, xoogna lagama fakan karo, xeeladna laguma fakan karo, awoodna laguma fakan karo. allah tabaaraka wa tacaala sinaba loogama fakan karo. bal waxaa laga yaabaa intaad istiraahdo ka carar meeshaad ku cararaysayba in lagugu helaa dhici karta sida rabbigeen fi suurati albaqara uu ku tilmaamay
ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم dad guryahoodii ka baxay ayagoo kumanyaal ah geerina ka cararaya iyo dhimasho ka cararaya markaasaa allah tabaaraka wa tacaala wuxuu ku yidhi dhinta amar baa la siiyey inay dhintaan kadibna waa dhinteen allana kadib waa soo nooleeyay tabaaraka wa tacaala marka deegaamadoodii iyo guryahoodii iyo meelihii sida badan lagu nabadgeli jiray ayay ay ka carareen waxay u carareen inay fakadaan allah tabaaraka wa tacaala amar buu ku siiyey inay baaba'aan oo ay dhintaan marka ilaahay tabaaraka wa tacaala iyo maqaadiirtiisa iyo awooddiisa haddaad istiraahdo waa ka baxsanaya waa waxaan suuroobi karin adduunkana kuma suuroobi karto aakharna warkeeda iska badaa oo allah tabaaraka wa tacaala markii aakharo la tago adduunkana isbeddel ku dhaco ibni aadamku wuxuu dhihi doonaa xaggee loo cararaa sida rabbi qur-aanka ku sheegay fa idaa bariqa albasar wa khasafa alqamar wa jumica alshamsu waalqamar yaquulu alinsaanu ayna almafar kalaa laa wasar ilaa rabbika yowmaidin almustaqar markii ishu iyo araggu uu wareero oo masaa'ibta iyo ahwaasha dhacaysa araggu la wareero oo dayaxa uu madoobaado iftiinka laga qaado oo qorraxda iyo dayaxa laysu geeyo maalinkaa insaanku wuxuu dhihi doonaa ayna almafar xaggee loo cararaa ama carar aaway xaggeen ku cararnaayo ku fakannaa allah wuxuu yidhi tabaaraka wa tacaala kallaa meel loo fakadayo meel loo cararatoona ma jirtee laa wasar yacni magangal ma jiro meel la gala ma jiro meel lagu fakada ma jirto meel lagu carara ma jirto ilaa rabbika yowmaidin almustaqar alla xaggiisa tabaaraka wa tacaala baa maalinkaa loo sugnaanaya oo xaggiisaa la aadayaaye meel loo fagan karoota ma jirto marka waxay la mid tahay aayadda kale rabbi yidhi tabaaraka wa tacaala maa lakum min malja-in yowmaidin wamaa lakum min nakiir marka allah tabaaraka wa tacaala adduunkana lagama fakan karo awoodna laguma fakan karo aakharana warkeeda iska badaa saas daraaddeed baa wuxuu yidhi alimaam alxuseyn ibnu alfadli baa wuxuu yidhi ixtarizuu kulla shayin duuna allah faman fara ilaa gayrihi lam yamtanic minhu buu yidhi wax kasta iska ilaaliyo alla aan ahayn tabaaraka wa tacaala wax kasta iska ilaaliya maxaa yeelay ciddii u cararta cid aan alla ahayn tabaaraka wa tacaala waxba uma qaban karo haddaad dhul ku cararto waxba kuuma qaban karo haddaad samada ku cararto waxba kuuma qaban karto haddaad dhinac kastood u carartaba ilaahay tabaaraka wa tacaala awooddiisa iyo cilmigiisa iyo qudradiisa kama fakan kartid maxaa yeelay marka aad fakanayso cidda aad ka fakanayso ama waa inaad ka dhuumato ood cilmigiisa ka hoos baxdo iyo ogaantiisa ama waa inaad caajis gelisood awooddiisa awooddiisa ku caawajisgelisood xoog u sheegato labadaa midna ilaahay tabaaraka wa tacaala lagagama fakan karayo macnaha qad axaata bikulli shayin cilmaa alla tabaaraka wa tacaala shay walbana cilmibuu ku koobayoo waa wada ogsoon yahay addoommadiisa shay walbana awood buu ku koobayoo wax awooddiisa ka hoos bixi kara ma jiro sidaas daraaddeed ayaa allah tabaaraka wa tacaala cidduu maago oo maqaadiirtiisu ay maagto cid ka hor istaagi karta ama ka baajin karta wuxuu ilaahay la maagay tabaaraka wa tacaala ma jiro nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayhi yaa rabbi wuxuu yidhi walow taqawala calayna bacda alaqaawiil la akhadnaa minhu biاlyamiin huma laqatacnaa minhu alwatiin famaa minkum min axadin canhu xaajiziin haddii uu nagu been abuuran lahaa nebi maxamed sal alla alay wasalam xaashaah ilaahay ku been abuuran maaye laakiin waa fardi hadday dhici lahayd inuu nagu been abuurto oo waxyaalo aan jirin ilaahay uu tabaaraka wa tacaala ku masabito waxaanu qaban lahayn midigtaanu ku qaban lahayn buu alla yidhi tabaaraka wa tacaala kadibna waxaanu goyn lahayn xididka weyn ee wadnuhu ku fadhiyaan jari lahayn halbowlaha wadnaha
ayaan goyn lahayn buu alle tabaaraka wa tacaala. marka kadibna famaa minkum min axadin canhu xaajiziin, cid idinka midoo naga celin kartana ma jirta buu rabbi tabaaraka wa tacaala. cid ilaaha iyo wuxuu maago kala dhex geli karta ama ka hor istaagi karta ma jirto way macnaha. laa mucaqiba lixukmihi, allah xukumkiisa tabaaraka wa tacaala cidina kama dabategi karto, cidina kama hortegi karto, ma dafcin karto, ma reebi karto. mar hadday sidaas tahay oo waxba laga qaban karin rabbi tabaaraka wa tacaala awooddiisa, cidduu maago ama uu rabo inuu yacni waxway rabbi tabaaraka wa tacaala uu halaago ama baabi'iyo ama dhib gaadhsiiyana aan haba yaraatee wax baajin kara jirin haddii adduunku isu tago oo caalamku isu tago oo makhluuqa awooddiisa isu geeyo dhammaantii. wax ilaahay maagay tabaaraka wa tacaala waxba uusan ka qaban karin. meeshaa waxaa inoo soo baxaya marka alfiraaru ila allahi tabaaraka wa tacaala, allah in loo cararo oo awooddiisa lagu cararo oo qudradiisa lagu cararo oo naxariistiisa lagu cararo oo rabbi tabaaraka wa tacaala isaga la magan galo xaggiisa loo cararo unbaa soo hadhay. ilaan meel kaloo lagu baaqsan kara ma jiro. makhluuqa qaar ka mid a haddii uu kula dagaalamo, isaga qaar ka mid ah haddana lagu cararaa. makhluuqa haddii aad ka fakan rabto, mid isagoo kalaa lagu fakadaa. laakiin ilaahay tabaaraka wa tacaala kama fakan kartid, cidaad ka magangeli karto oo kaa magangelin karo oo kaa celin karana ma jiro. sidaas daraaddeed waxaa soo hadhay uun allah tabaaraka wa tacaala in loo cararo. waana macnaha muxaadaradu ay ku saabsan tahay. allahna tabaaraka wa tacaala qur'aanka kariimka waa ka inoogu sheegay waassamaa'a banaynaaha biaydin wa innaa lamuusicuun waalarda farashnaaha fa nicma almaahiduun ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. samadii ayaan dhisnay buu rabbi tabaaraka wa tacaala, awood baan ku dhisnay. samadaad aragteena sidaa u ballaadhan rabbi tabaaraka wa tacaala awooddiisuu ku dhisay, annagaana waasicinay oo ballaadhinay buu rabbi tabaaraka wa tacaala. dhulkana waan gogollay oo kuwa goglay baa nicmo lahaaday, annagaa saa u gogollay buu rabbi tabaaraka wa tacaala. waa shay cajo badan. shay kastana waxaanu ka yeellay buu rabbi tabaaraka wa tacaala zawjayni, laba nooc, lacallakum tadakaruuna, si aad u waana qaadataan. yacni markii yacni muuqaaladaa waaweyn iyo makhluuqaadkaa waaweyn la tilmaamay ayaa rabbi wuxuu yidhi tabaaraka wa tacaala fafiruu ila allah. mar hadday sidaas tahay, awoodda rabbi ee dhulka cirka waasicisay, ee dhulkana fidisay, ee shay walba oo jirana zawjayn ka dhigtay, awooddaasi awoodaad ka fakan kartaan meehee, awood aad muxuu ahaayey ka carari kartaanna ma aha. fafiruu ila allah, xagga alle u carara marka. innii lakum nadiirun mubiin, waxaan ahay anigu haddaan nebi maxamed ahay sal alla alay wasalam mid idiin digaya, xaggiisa idinka digaya, digniintiisuna ay caddahaye. war digniin baan idiin xambaarsanahay oo waxaan idinka digayaa khatar, oo waxaan idinka digayaa xagga rabbi, oo cuquubadiisaan idinka digayaa, oo dhib idinku imaan karaan idinka digayaa. digniintayduna bannaankay taallaayo waa iska caddahay. sidaa ku dhawaala nabiga laleeyahay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh. masaladaasi marka aayaddaasaa asal u ah. allah tabaaraka wa tacaala isagaa loo cararaa. meel kaleeto oo lagu carari kara ama ku badbaadin kartana ma ay jirto. xadiidka nebiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh, xadiidu albaraa ibni caazib fi saxiixayni, bukhaariyo muslim baa soo saaray, ayaa nabigu sal alla alay wasalam wuxuu yidhi idaa akhadta madjicaka fatawada' wudu'aka lisalaa. markaad habeenkii ama maalintii aad gogoshaada tagto oo aad seexan rabto, waxaad weysaysataa sida salaada loogu weyse qaatoo kale weyse qaado. markaad weyse qaadato waxaad u seexataa dhankaaga midig, kadibna waxaad tidhaahdaa allaahuma innii aslamtu wajhii ilayka wa fawadtu amrii ilayka wa alja'tu dahrii ilayka ragbatan wa rahbatan ilayk laa malja'a walaa manja minka ilaa ilayk aamantu bikitaabika aladii anzalta wa nabiyaka aladii arsalta. wuxuu nabigu yuri sal lla alay wasalam, markaad seexato adoo weyse qabo dhanka midig u seexato, waxaad tidhaahdaa ducadan akhri: ilaahayow waan hoggaamiyey wejigayga, adigaan kuu hoggaamiyey, yacni addoon kuu hoggaansan baan hoggaankan kuu dhiibtay, arrinkaygiiyo taladaydana adaan kuu dhiibtay oon ku tala saartay.
dhabarkaygana adaan kugu tiiriyo xaggaagaan u tiiriyey waa tawakkul iyo taala saarasho wey cabsi aan ka baqayo cadaabkaaga iyo cuquubadaada iyo rajo iyo hunguri iga haya yacni naxariistaada iyo ridahaaga yaan sidaa u yeelayaa ujeeddada xadiisku waxa weeye laa malja'a walaa manja minka ilaa ilayk allow meel lagaa magangalo ama lagaaga baxsado lagaaga fakado ma uu jiro in xaggaagaba loo soo cararo mooye laa malja'a magangal walaa manja'a iyo badbaado ama meel lagu magangalo iyo meel lagu badbaado toona ma jirto ilaa ilayka xaggaaga mooye yacni meel kaloo lagu badbaadi karta ma jirto marka waa in ilaahay tabaaraka wa tacaala cuquubadiisa aad ka cararto oo aad u cararto naxariistiisa sida nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu caleyh uu ku ducaysan jiray allaahuma innii acuudu biridaaka min sakhatika wa bimucaafaatika min cuquubatika wa bika minka laa uxsii hanaa'an calayk ilaahow waxaan magan gelayaa yacni waxa weeye ridahaaga oo waxaan ka magangelayaa cadhadaada yacni ilaahay ridihiisaad magangeli isagii baad magangeli cadhadiisaad ka magangeli wa bimucaafaatika cafintaadaan magangelayaa min cuquubatika cuquubadaadaan ka magangelayaa cuquubadii isagaa leh cadhadiina isagaa leh kuwaasaad ka cararaysaa waxaad u cararaysaa cafigii iyo ridihii oo isagu uu leeyahay sifaadkiisii baad allah tabaaraka wa tacaala qaarna ka cararaysaa waa sifaadkii cuquubada keenayay sifaadkiisa qaar baad ku cararaysaayoo ood magangelaysaayoood hoos gelaysaa middaa weeye marka laa malja'a walaa manja minka ilaa ilayk meel kaloo loo cararo iyo meel kaloo lagu magangalo allow ma jirto xaggaaga in loo soo cararo mooye waxaad tidhahdaa buu nabi sal alla alay wasalam kitaabkaagaan rumeeyey allow nebigaad soo dirtayna waan rumeeyey hadalkaa waxaad ka dhigtaa habeenkii markaad seexanayso kuugu dambeeya habeenkaa haddaad geeriyooto islaamnimada iyo fidrada saxdaa baad ku dhimanaysaa buu nabi sal alla alay wasalam ujeeddadu waxay tahay marka yacni allah tabaaraka wa tacaala meel looga baxsado iyo meel looga fakado ma uu jiro isagaa inaad ku cararta mooye isagaa inaad nabad gasho yacni magan gasho mooye isagaasi inaad hoos gashood naxariistiisa ku cararta mooye meel looga fakan kara ma jiro sidaas daraaddeed ayaa allah tabaaraka wa tacaala wuxuu uhi fafiruu ila allah war xagga alla u carara macnaha aayadda culimmada fasirtay macaani aad u fara badan bay ku fasirayaan waxaa ka mid a macaanida iyada ah yacni alfiraaru ila allahi tabaaraka wa tacaala oo macnihiisu yahay alfiraaru min alkufri ila altawxiid wa min ashirki yacni min alkufri ila aliimaan dheh wa min ashirki ila altawxiid inaad ka cararto kufriga oo aad iimaanka u cararto inaad ka cararto wadaajinta ilaahay iyo addoommadiisaoo wax la wadaajiyo ood u cararto keliyeelidda ilaahay oo xuquuqdiisa loo keliyeelo taa iyada ah waa midda ugu horraysa wey inaad gaalnimada ka cararto iyo kufriga ood u cararto iimaanka iyo rumaynta wax kastoo ilaahay uu ku amray inaad rumayso inaad yacni oo isaga uu kow ka yahay isaga aad rumayso malaa'igtiisa rumayso kutubtiisa rumayso yacni wax weeyaan aad rumayso muxuu ahaayey yacni kutubtu soo dejiyey aad rumayso aakhare aad rumayso maqaadiirtiisa khayrkeeda iyo sharkeeda aad rumayso wax kastoo rabbi faray tabaaraka wa tacaala inaad rumayso inaad rumayntaa ku cararto oo aad gaalnimada ka cararto inaad ku cararto tawxiidka iyo ilaahay tabaaraka wa tacaala inaad xaqiisa u keli yeesho oo aad u keli yeesho cibaadada isagu uu leeyahay oo aad ka cararto shirkiga iyo wadaajinta inaad allah tabaaraka wa tacaala iyo addoommadiisa waxaan ka dhexayn karin aad ka dhexaysiiso wixii ilaahay gooni u lahaa oo cibaadada ah oo keliyeelidda ah oo xuquuqda ah oo khasaa'ista ah alla uu gooni u leeyahay tabaaraka wa tacaala inaad u gooni yeesho oodan cid kaleeta ka siinin oodan cid kale la wadaajinin laa malag aadan wax ka siinin walaa rasuul aadan wax ka siinin walaa weli iyo sheekh aadan wax ka siinin walaa dhagax iyo geed aadan waxba ka siinin walaa qorax iyo dayax aadan waxba ka siinin hawshan ilaahay baa iskale tabaaraka wa tacaala asalka diintuna waa kaa asalka diinta lagu carari ee ilaahay tabaaraka wa tacaala addoommadiisa uu uga dhigay xirsi xidhkiiyo xisniga dhufayska lagu cararo ee ugu horreeya kaa isagaa wey fafiruu ila allah
أي فروا من الشرك إلى التوحيد واي وفروا من الكفر إلى الإيمان واي سيداس درادت بقى الإمام ابن جرير الطبري عليه رحمة الله آيات مركو فسيري وحويل يعني اهربوا من عقاب الله إلى رحمته بالإيمان به واتباع أمره والعمل بطاعته عرر إلهي عقوبتي سكا عرر نحريستي سو عرر سيكو إيمانيسا وإنات رميسان ood gaalnimada aad diidaan oo aad raacdaan amarkiisa daacadiisana aad ku camal fashaan marka fafirru ila Allah al-imam an-naysaburi wuxuu leeyahay fafirru ila Allah ay iltaji'u ilayhi wala ta'budu ghayrahu amrun bil iqbal alayhi wal i'rad amma siwa yani ilahi tabaaraka wa ta'ala magangala cidaan isaga ahaynaha caabudina arrintaasi waa amar ilaahay u jeedsada lays amraya wixii isaga ka soo hadhayna ka jeedsada isaga u jeedsada wixii ka soo hadhayna ka jeedsada keligii caabuda cid kalena ha la wadaajinina waa xaq rabbi tabaaraka wa ta'ala adoomadiisa uu ku leeyahay sida xadiidkii mucaad ibn jabal uu nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam mucaadow atadri ma haqqu allahi ala al-ibad wa ma haqqu al-ibadi ala allah mucaadow ma taqaana حق الله أدومدي سأوكليه أدومدو سحق الله كليهين متقانا معاذ حولي الله ورسوله أعلم إلهي رسول كيسا قرنبوري نبي قحولي صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد حق الله أدومدي سكليه وأن يعبدوه إني عابدان ولا يشركوا به شيئا عبادتي سنة إن عدك للو ذاتشنين يعني وحويان عباداتك إن عدك للو ذاتشنين وإساق أقوني يلان hadday sidaas sameeyaana xaqa ay ku yeelanayaan waxa weeye alla yucadiba man laa yushriku bihi shay-an ciddii xaqa ilaahay saafi yeesha oo keligii siisa oo isaga u sujuuda oo keligii barida oo keligii kaalmo weydiisata oo keligii u noqota oo keligii tala saarata oo keligii jeclaata xuquuqda rabbi leeyahay tabaaraka wa tacaala ruuxii gooni u siiya ilaahay inuusan cadaabin xaqaasa iyaguna alla ku leeyihiin tabaaraka wa tacaala marka taasi waa qodobka koobaad waana qodobka ugu asaasisan waa alladhiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulmin ulaa'ika lahumul amnu wahum muhtaduun dadka yacni iimaanka leh ee iimaankoodana aan shirki ku badxin aan shirki ku qasin kuwaasaa ammaan iska leh ayagaana hanuunsan buu rabbi yidhi tabaaraka wa tacaala yacni waxa weeyaan laba qodob baa la siiyey adduun iyo aakharaba ammaan bay leeyihin haa adduunka dhiigooda iyo naftooda iyo xoolahooda iyo cirdigooda waa inay u nabadgalaan aakharana waa inay ka nabadgalaan qiyaamada iyo yacni qabriga iyo masaa'ibta iyo cadaabka iyo cuquubada iyo waxyaalaha dambeeya inay ka nabadgalaan waa ammaan bay leeyihin maxay ammaanka ku heleen tawxiidkay ku heleen sidaas daraaddeed alfiraaru ila allah yacni alfiraar ila altawxiid wa tarki shirk in ilaahay loo cararo tawxiidkiisa shirkiga iyo wadaajintana laga fogaado bishatta anwaaciha noocay dooni ha u taallo taasi waa qodobka koobaado waa asaaska firaarka way macna cararka isaga asaas u ah waana meesha asaaska ahe yacni la dhihi karayo waa godka ama dhufayska aad ku nabadgeli karto ee aad ku badbaadi karto aakhariya adduunba inaad ku cararto tawxiidka rabbi tabaaraka wa tacaala ood xaggiisa u cararto ood shirkiga ka cararto qaabkuu dooni ha u yaalle qodobka koobaadee horta waa kaa qodobka labaadii waxa weeye culimmadu ay tilmaamaan markay fasirayeen aayadda qur'aanka fafiruu ila allah waxay ku fasiraan alfiraaru ila allahi bitawbati min addunuub ilaahay in loo cararo oo loogu cararo inaad ka cararto dunuubtaadii wixii kaa dhacay inaad ka soo noqoto wixii kalena aad iska ilaaliso taasi waa carar ilaahay xaggiisa aad u cararayso tabaaraka wa tacaala saas daraaddeed baa alimaamu shawkaani caleyh raxmatullah markuu aayadda fasirayay wuxuu yidhi firuu ila allahi bitawbati min dunuubikum can ilkufri waalmacaasi yacni ilaahay u carara oo waxaad ugu carartaan noqosho aad dunuubtiinna ka soo noqonaysaan macnaheedu waxa weeye khalad waynu gelaynaa waanan dembaabaynaa innagoo dhan nolosheenna waa iska qasannahay
waxbaan qasanaynaa waxbaan kharribaynaa dunuub baan gelaynaa ilaahay tabaaraka wa tacaala cuquubadiisa iyo cadhadiisa wax sabab u noqon kara baan mar walba samaynaynaa laakiin daawadu waxa weeye ha isku halmaamin khaladkaasi waa dab waa cuquubo waa cadho ilaahay buu sabab u noqon tabaaraka wa tacaala adduun iyo aakharaba inaad khasaartuu sabab kuugu noqon sidaas daraaddeed xalku wuxuu yahay inaad tawbada ku cararto oo aad dunuubta ka cararto taasi waxa weeyaan ilaahay u carar oo ka carar ghayrkii ka carar taasi way macnaheedu liibaantuna taasay ku jirtaa sidaas daraaddeed buu rabbigeen tabaaraka wa tacaala fi lqur'aani alkariim wuxuu yidhi watuubuu ila allahi jamiican ayuha almu'minuuna lacallakum tuflixuun ilaahay u noqda oo allah idinkoo idil u noqda mu'miniintiyow si aad u liibaantaan tuubuu ila allahi jamiican idinkoo idil iyo dunuubtoo idil idinkoon idinoon kaarhadhin ilaahay u soo noqda dunuubta oo dhanna ka soo noqda waxaa ku jira liibaantiinaa ku jirta lacallakum tuflixuuna liibaantu halkaasay ku jirtaa bimacnaa tawbaddu waxay keenaysaa in allah tabaaraka wa tacaala yacni waxa weeyaan wixii dhibku gaadhsiin lahaa uu kaa cafiyo oo wixii yacni aakhiradaada iyo adduunkaaga khatar ku gelin lahaa waxay keenaysaa tawbaddu in ilaahay tabaaraka wa tacaala kaa baajiyo oo dhibaato fara badan ilaahay kaaga dafciyo kaaga reebo cararka marka ilaahay xaggiisa aad u cararayso allana tabaaraka wa tacaala uu ku soo dhowaynayo sida xadiidka nabiga ku sugan sal alla alay wasalam ina allaha yabsutu yadahu billeyli liyatuuba musii'u nnahaar wa yabsutu yadahu binnahaari liyatuuba musii'u lleyl maalintii ilaahay gacantuu fidinayaa si uu ugu soo laabto addoonkii habeennimo khalad galay habeenkiina gacantuu fidinayaa si uu u soo laabto addoonkii maalinimo khaladka galo dembiga galay allah tabaaraka wa tacaala towbadda addoonkiisuu rabaa inaan u soo noqonno liibaantu taasay ku jirtaa marka firuu ila allah yacni firuu min aldunuubi waalmacaasi bitawbati ila allahi tabaaraka wa tacaala ilaahayood u soo noqoto khaladkood ka soo noqoto waa carar xagga rabbi aad u carartay maxaad ka cararaysaa waxaad adigu samaysay baad ka cararaysaa ilaan markaad dembi gasho waa dab huraya wey waa dab hurayo holcaya wa oo saamayn ku yeelanaya noloshaadoo dhan oo ku yeelanaya muxuu ahaayey taada diineed noloshaada adduunyo carruurtaada xoolahaaga yacni waxa weeyaan meel walba laga yaaba inay saamayntiisu gaadho dabkaasaad marka ka cararaysaa cuquubadaasaad ka cararaysaa waxaad u cararaysaa allah tabaaraka wa tacaala markaasaa waxaad yacni doonaysaa in ilaahay ku saamaxo dhibaatooyinka aad adigu keentay iyo asbaabta aad adigu sababta u tahayna ilaahay tabaaraka wa tacaala inuu kaa saamaxo marka fafiruu ila allah lianna asbaabta ibni aadamka dhurdarradiisa iyo liibaan darradiisa iyo halaagiisa adduun iyo aakharaba waxa keena waa dunuubta wey waxa lagu xalliyee lagu muxuu ahaayey ee lagu hagaajiyey lagu saxana waa towbadda wey taasina marka waxay ka mid tahay alfiraar ila allahi tabaaraka wa tacaala waxaa kaloo saddexaad oo ka mid a alfiraaru ila allahi tabaaraka wa tacaala alfiraaru min almacaasi ila altaaca in aad ka cararto yacni macaasida iyo dunuubta ood u cararto ilaahay taacadiisa tabaaraka wa tacaala aad u cararto waajibaadka gudashadooda aad u cararto ilaahay tabaaraka wa tacaala faraa'idda uu ku saaray ee adiga lagugu danaynayo ee aan lagugu danaysanaynin lianna rabbigeen tabaaraka wa tacaala huwa alghaniy asaga ayaa wuxuu yahay midka inaga kaaftooma innagaa waxaan nahay kuwa u baahan haddaynu shukrino oo faraa'ida iyo waajibaadka iyo jidku inoo jeexay aan marno innagaa iska leh haddaan kufrinoon arrinkaa isagaa diidnana innaga unbuu inugu soo noqon laakiin allah tabaaraka wa tacaala fii xaalati alkufrina waxba dhibaato ah soo gaadhi maayo fii xaalati shukrina wax ilaahay uu ka faa'iidayo tabaaraka wa tacaala ma jirto u noqonayo isaga milkigiisa sida xadiidka nebiga ku sugan salawaatu rabbi wasalaamu caleyh adiga iyo camalkaaga wey sidaas daraaddeed faraa'idda iyo waajibaadka salaada iyo soonka iyo sakada iyo xajka iyo cibaadaadkaas inaad ku dadaasho allah tabaaraka wa tacaala xaggiisood u carartay wey allah marka waa ku xifdinayaa tabaaraka wa tacaala sida xadiidulqudsiga ku yimid fii saxiixi albukhaari
والنبي يقول صلى الله عليه وسلم الله حديث القدسي رسولك وربك كورنيو أيا ربي وحلي تبارك وتعالى وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه أدون كيغو مسو دوادو وحان كتش على هاي وحي أنكو واجبي وإله اللوغو دوادو وحا أقوقي مبضا وحيابها واجباتك عباداتك واجبك يا فروض يا أيا أقوين وح إله اللوغو دوادو مركز ربي وحلي تبارك وتعالى ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه بالله تبارك وتعالى أدون كيغو كما الزولي إنو سنوين كبتصنا يغسو دوانيو waajibaadkiibuu markii hore meel saaray waajibaadkiibuu ka dadaalay waajibaadkiibuu ka adkaaday waajibaadka kadib wuxuu badsanayaa sunnooyinkiibuu badsanayaa kama zuulayo inuu sunankaa badsanayo ilaa aan ka jeclaado buu rabbi tabaaraka wa tacaala yacni waxay keenayaan soonka faraha badan salaada faraha badan taacada faraha badan xajka iyo cumrada faraha badan sadaqada faraha badan waxay keenayaan inuu ilaahay adoonka jeclaado hadduu alla jeclaadana wuxuu rabbi leeyahay tabaaraka wa tacaala waxaan adoonka u noqonayaa araggii uu wax ku arkayay maqalkii uu wax ku maqlayay gacantii uu wax ku qabanayay lugtii uu ku soconayay intaba waan u noqonayaa maxaa laga wadaa ilayhna culimadu waxaa laga wadaa yani ilaahay baa xifdinaya allah tabaaraka wa tacaala wuxuu u xifdinayaa xubnihiisa wuxuu ka xifdinayaa wixii dhibaato u geysanaya الله تبارك وتعالى وتأييدنا وتاجيريا وربي وأوهي لنا معاني ذا صار لجوضة يعني إعانة هي النصرة هي اللي تشريده هي حفظنته أيا لجوضة الله تبارك وتعالى حبنه ساسو إلى لنا ولئن سألني لأعطينه هدو حيويدي سنة وانسين ولئن استعاذني لأعيذنه هدو وحو كبق هي إجمع جنجلنا oo igu soo cararana waan magan gelin buu Allah tabaaraka wa tacaala say ku iimaanaysaa waa daacada Ilaahay oo ku cararto oo aad ka cararto ghaflada sida hadda dad badan haysata nolosheena inteeda badan waxa ayna haysata waxa la yiraahdo ghaflada waxa ban moogna iska halmaansanahay Allah tabaaraka wa tacaala dhikrigiis Allah xuskiis Allah daacadiisa tabaaraka wa tacaala adduunyada iyo matahaadkeeda iyo togogeeda iyo masaa'ibteeda aynu ku mashquulsanahay khaasatan yani wax weeyaan dadkiinaasi iyo muxuu ahaayay iyo annagaba ummadaha kale gaalada ku dhex nool ghafalaadkaasa ina qaatay oo runtii wax weeye wax badan ina seejinaya marka ilaahay inaad ka carartaan yani muxuu ahaayay macaasida iyo dunuubta ka carartaan oo daacada ilaahay tabaaraka wa tacaala inaad u carartaan sidaas daraaddeed al-Imam al-Qurtubi alayhi rahmatullah ayad markuu fasiray wuxuu yiri fafirru ila Allah firru min macaasihi ila taa'atihi ilaahay waxaad ka carartaan macaasidiisa oo waxaad u carartaan daacadiisa waa carar ilaahay loo cararay tabaaraka wa tacaala waxayna ku tahay markaad ilaahay xifdido asaguna waa ku xifdinaya sida xadiidka Abdullah ibn Abbas cinda Tirmidhi ku yimid ihfadillah yahfazuk Allah xifdi tabaaraka wa tacaala isaguna waa ku xifdinaya ihfadillah tajidhu tujahaka Allah xifdi hortaadaad ka helaysaa maxaa laga wadaa Allah xifdi xuduudiisa xifdi oo shariicadiisa xifdi oo amarkiisa xifdi oo wuxuu ku dira samee oo wuxuu ka reebay daa hadaad xifdido ilaahay sharcigiisa iyo xuduudiisa hadaad xifdido Allah tabaaraka wa tacaala wuxuu kugu abaalgudaya inuu ku xifdiyo wuxuu ku xifdinayaa masaalixdaada iyo danahaaga adduunyo ilmahaaga reerkaaga noloshaada caafimaadkaaga ilaahay waa kuu xifdinaya tabaaraka wa tacaala masaalixdaada iyo danahaaga aakhirana waa kuu xifdinaya diintaadu kuu ilaalin khatartu kaaga ilaalin yani fitnooyinku kaaga ilaalin mawjadahan halista ah dadka intoodii badan baqaatay baa lagaaga ilaalin maxaa lagugu ilaalinayaa ilaahay daacadiisa khayrka aad u carartay iyo wanaagga aad u carartay iyo masaajidda aad u carartay iyo goobaha khayrkeed ku carartay ee ilaahay daacadiisa aad ku samaynayso
ayaa ilaahay tabaaraka wa tacaala kugu xifdinaya. marka macnaheedu waxa weeye ilaahay daacadiisa u carara oo macaasida ka carara. waxaa qodobka afraadi uu yahay oo ilaahay tabaaraka wa tacaala fafiruu ila allah ilaahay u carara soo gelaya alfiraaru min taacati ashaytaan ilaa taacati araxmaan. ilaahay tabaaraka wa tacaala daacadiisa u carar oo waxaad ka carartaa shaydaanka daacadiisa. dadku waa laba, wax saddexeeya ma jiro. dadku waa laba, dad shaydaankay adeecaan oo caabudaan, dadna allaha raxmaankay caabudaan. labadaa un baana loo qaybsan yahay. sida rabbigeen tabaaraka wa tacaala qur-aanka kariimkaa ku sheegay alam achad ilaykum yaa banii aadama anlaa tacbudu ashaytaan innahu lakum caduwun mubiin waan icbuduunii haadaa siraatun mustaqiim. soomaanan idiin dardaarin oo idinma amrin ibni aadamkiiow ha caabudina shaydaan. war shaydaan ha caabudina soo idinma dhihin. maxaa yeelay cadow cad buu idin yahay. aniga i caabuda, keligay i caabuda, jidka toosan waa kaasi. meeshaa waxaa ka muuqata aayado kaloo qur-aanka ka midana ay caddaynayaan dadku ibni aadamku dadna waxay ka amar qaataan oo ateecaan shayaadiinta oo laba qaybood isugu jira. odaygii weynaaye ibliis ee jinka ahaa iyo ciidamadiisa oo qaybta jinka ah, iyo kuwaasi kuwo ay wax u sheegaan oo ayagu soo diraan oo shayaadiinta insiga ah. sida rabbi tabaaraka wa tacaala uu yidhi shayaatiinu alinsi waaljinni yuuxi bacduhum ilaa bacdin zukhrufa alqawli guruura. ayagaa wax isu sheegoo isdira. ibni aadamka shayaadiintiisa waa kuwa sharka ka shaqeeya, waa kuwa diimaha la dagaalama, waa kuwa shirkiga iyo gaalnimada iyo bidaca iyo macaasida faafiya. ibni aadamka kuwiisa shayaadiinta ah dadka ka amar qaata, ayaga waxay rabaan ku raalligeliya. dadna kuwaasay caabudaan oo shayaadiinta insiga iyo jinnigay adeecaan, sidaasayna ku caabudaan. qaarna allah keligiibay caabudaan. labadaa un baana loo qaybsan yahay. ciddii aan alla caabudin shaydaan bay caabudaa. ciddii alla ka xadhig furata shaydaan bay ku xadhig xidhatay. ciddii alla ka goosata shaydaan bay raacday. masaladu marka waxa weeye shaydaan oo halista ugu weyna ina haysataba ah yaa kaa badbaadin karo oo yani kaa celin kara. cid kaloo kaa celin karta ma jirto. allah inaad ku carartood shaydaan kaga cararto wa. sidaas daraaddeed baa qur-aanka kariimka rabbigeen tabaaraka wa tacaala waxa uu yidhi wa imaa yansaqannaka min ashaytaani nasqun fastacid billaah. hadduu shaydaan ku fasaadiyo, hadduu shaydaan ku dhibo, hadduu shaydaan ku waswaasiyo, allah tabaaraka wa tacaala magan gal, allah ku carar. isaga meelaanaadu kaga baxsan karta ma jirto. marka alfiraaru ila allah, ilaahay oo loo cararo oo lagu cararo oo shaydaankiiyo sharkiisa lagaga cararo. sidaas daraaddeed allah tabaaraka wa tacaala meelo badan oo qur-aanka ka miduu ku tilmaamay fa idaa qara'ta alqur'aana fastacid billaah. alla ku carar. qur-aanka markaad akhrinayso ilaahay ka magan gal. maxaa yeelay ilaahay tabaaraka wa tacaala addoommadiisa saalixiinta ah shaydaanka sharkiisa isagaa ka ilaalinaya. waxaana qur-aanka kariimka ku sugan aayado rabbi uu ku tilmaamayo oo shaydaan uu ku leeyahay khaasatan ibliiskii odayga ahaa ee diiday inuu nebi aadam u sujuudo. allah tabaaraka wa tacaala wuxuu ku yidhi innahu laysa yani wax weeyaan wax awood ah kuma lihdi iyo sultaan addoommadayda saalixiinta ah. markuu sheegtay oo yidhi aadam dadkuu dhalay waan duufsan oo waan baadiyeyn, ayaa alla wuxuu yidhi tabaaraka wa tacaala addoomadaysase saalixiinta ee fiicfiican kuwa iyaga anaa ilaashanaya, agtooda kama dhowaan kartid. marka allah tabaaraka wa tacaala wuxuu kugu ilaalin inaad shaydaanka ka cararto, isaga ku cararto, daacadiisa ku cararto, shaydaanka ka magan gasho. suuraddan oo qur-aanka ka midoo rabbi inugu baray tabaaraka wa tacaala qul acuudu birabbi annaas maliki annaas ilaahi annaas min shari alwaswaasi alkhannaas alladii yuwaswisu fii suduuri annaasi min aljinnati waannaas. yacni waa magangeliyo ilaahay tabaaraka wa tacaala sifaadkiisa ayaad magangeli. waxaad ka magangelaysaa shaydaanka khannaaska ah, yacni waxa weeyaan dhuumashada iyo gabashada badan. markaad ilaahay xustana waa gabanaya, waa dhuumanaya, waa cararaya.
markaad ishalmaantana waa ku soo weeraraya waa soo noqonaya meesha uu kaa weerarayana waa meesha yacni jidhka ugu khatarsan laabta ayuu muxuu ahaaye kaa weeraraya qalbiga ayuu waswaaska gelinaya laabta ayuu kaa ta'hiina kaa saamaynaya hadduu laabto xaruntii jidhka agalayna hadda jidhka intiisa kaleeto waa raacaya kaas ilaahay tabaaraka wa tacaala inaad kaga cararto fafiruu ila allah shaydaan iyo sharkiisa ka carara oo ilaahay ku carara tabaaraka wa tacaala oo magan gala taa iyadaa wey sidaas daraaddeed baa addoommada ilaahay tabaaraka wa tacaala ku xidhani ee yacni magangelyadiisa iyo baryadiisa badiya waa dad ilaashan wey waxaa sugan xadiid anas ibnu maalikin laga warinayo inuu yidhi nebigu sal lla alay wasalam ruuxii yidhaahda markuu gurigiisa ka baxayo bismi illaahi tawakaltu cala allah walaa xawla walaa quwata ila billah ilaahay baan salaad saartay magaca ilaahay baana ku baxayaa ilaahay tabaaraka wa tacaala awood ma lihi xeeladna ma lihi ilaa ilaahay kaalmadiisa mooye ruuxii sidaa ku baxa ayaa waxaa la odhanayaa hudiita wa kufiita wa wuqiita waa lagu hanuuniyey waana lagu kaafiyey waana lagu ilaaliyey baa laleeyahy shaydaankuna waa ka fogaanaya xadiidkaa waxaa soo saaray abu daawuud iyo tirmidi iyo nasaa'i tirmidi abu daawuud wuxuu ku siyaadiyey shaydaanku shaydaankii kale wuxuu ku leeyahay kayfa laka birajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya warniyow seebaad ugu dhiiran kartaa adiga nin sidiisaba la hanuuniyey oo la kaafiyey oo la ilaaliyey ma u dhowaan kartid waa xirsi xidhan yah xagga min allahi tabaaraka wa tacaala buu ka ilaashan yah ha isugu dhowaanin marka waxa weeyaan allah tabaaraka wa tacaala markaad hoos gasho oo isaga aad ku cararto allah waa ku ilaalinaya tabaaraka wa tacaala fafiruu ila allah allah ku carara oo shaydaanka iyo sharkiisa ka carara oo halkaa magan gala oo meeshaasi hoos gala macnaheedu waxa weeye waa macaanida ay faa'iidaynayso aayadda qur-aanka ee fafiruu ila allah sidaas daraaddeed baa dadka ugu roon ee ilaahay tabaaraka wa tacaala adduuniya aakharaba badbaadiyey waxa uu ku badbaadiyey waa cararka ilaahay xaggiisa ay u carareen tabaaraka wa tacaala waxaa ka mid a macaanida kelimadaasi faa'iidaynayso ee loo baahan yahay inay siday tahay aan u qaadanno fafiruu ila allah macnaheedu waxa weeye alfiraaru ila allah min aljahli ila alcilmi inaad cararto aqoon darrada ka cararto jahliga aad ka cararto ood u cararto cilmiga mugdiga jahliga inaad ka baxdo oo aad cilmiga iyo nuurkiiyo iftiinkiisa u baxdo taasi waxay iyaduna ka mid tahay alfiraaru ila allahi tabaaraka wa tacaala sidaas daraaddeed baa culimmada qaarkood waxay ku fasireen fafiruu ila allah ay min aljahli ila alcilmi bay ku fasireen sida dunnuun ilmisri laga wariyo waajibaadka ugu horreeya diintana waaba saas asaaska diintu waxa weeye ee wax walba ku qotomo ee yacni tawxiidku ku taagan yahay ee waajibaadka iyo arkaanta waaweyn ee diinta salka u ah waa cilmiga waa oo ruuxii dee aan aqoon lahayn oo cilmi lahayn oon garanaynin wuxuu ilaahay ku caabudayo waa ruux yacni waxa weeye khayrka laga qadiyey waa sidaas daraaddeed baa xadiidkii fi saxiixayn ku yimid min xadiidi mucaawiya ayaa nebigu wuxuu yidhi sal alla alay wasalam man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin ruuxuu ilaahay khayr la rabo diintuu fahansiiyaa diinta fahamkeeda garashadeeda barashadeeda ku dhaqankeeda ayaa ilaahay u diraa halkaasaa la waafajiyaa waa haddii khayr lala rabo wa marka waxa weeye alfiraaru min aljahli ila alcilmi asharci ila alcilmi annaafic saas daraaddeed baa xadiidka waxaa ku yimid inuu nebigu uri sal lla alay wasalam man salaka طariiqan yaltamisu fiihi cilman sahala allahu lahu طariiqan ila aljanna ruuxii dariiqaana uu cilmi ku raadinaya waa cilmiga shareecade ilaahay wuxuu u sahlaa jid jannada jidku u qaadina waaba cilmigaasaaba jidkii janna wa ina almalaa'ikata latadacu ajnixatiha lidaalibi alcilmi ridan bimaa yatlub malaa'igtu garbahay u dhigaysaa ardayga cilmiga shareecada raadinaya raalli ahaan ay raalli ka tahay waxa uu dalbayo u fiirso xataa malaa'igta ilaahay baa loo adeejinaya waa la ilaalinaya waa la xifdinaya maxaa yeelay cilmigii sharciga ayuu dalbaya cilmiga sharcigu marka waa furaha khayrkao dhan jahliguna waa shar oo dhan waxa weye furihiisa wey jahliguna waa shar oo dhan furihiisa sidaas daraaddeed baa dadka lumay oo dariiqa saxdaa ka lumay oo shaydaan u adeegay oo shaydaan qaatay
intooda badan musiibadu waxay kaga dhacday aqoon darrada ruuxa jaahilkan aqoonta lahayna cibaadana ma hagaajin karo tawxiid iyo caqiidana iska badaa sunno iyo bidco kala garan maayo daaca iyo macsiyo ma kala yaqaano noloshiisa in badan oo ka mid ah isagoo hagaaji leh buu wax kharibahayaa asaga oo yacni daaca la ima uu islaam macaasida galaya laga yaabo inuu tawxiidkiiba shirki u noqdo shirkigiina tawxiid isugu bedelo sunnadii bidca ugu noqoto waxba ma kala garanayo waa xaadibul layl waa nin habeen madow oo gudcur ah ayuu wuxuu urursanayaa xaabuu urursanayaa markaasaa xaabadaasi wax walba u geli abeesuu qaadi oo maskuu qaadi oo qoriguu qaadi oo waxba uma kala socna leanna waxa weeye tooshkii nolosha iftiimin lahaabaa ka maqan marka fafiruu ila allah cilmiga shareecada u carara jahliga ka carara aqoon darrada ka carara fitanka dhacaya asal waxa uu ah sida xadiista nabiga ku sugan sallallahu alayhi wasallam aakhiru zamaanka islaynta iyo dilka iyo iskhilaafka iyo masaa'ibta inteeda badan waxa asal u ah cilmiga marka la qaado culimada iyo cilmigu yaraado markaasay fitanka iyo harjiga iyo dagaalada iyo dulmigu imaanaya waana tan maanta taagan wey badbaadadu marka waxay ku jirtaa cilmiga shareecada u carara oo jahliga ka carara aqoonta u carara iftiinka u carara waxaad ka carartaan aqoon darrada iyo jahliga ka carara qodobkaasina waxa uu soo galaya isagana fafiruu ila allah innii lakum minhu nadiirun mubiin waa digniin cad waa ruuxa noloshiisa aan ilaahay tabaaraka wa tacaala garanaynin waajibka ugu horreeya shareecada sida culimmadu ay leeyihiin awalu waajibin cala alcabdi macrifatu rabbih waajibka ugu horreeya addoonka saaran inuu rabbigii garto weeyo tabaaraka wa tacaala taasi ayaa waxay tahay marka qodobka xiga ee fafiruu ila allah in laga cararo jahliga oo loo cararo aqoonta cilmiga shareecada waxaa ka mid a macaanida ay aayadda ku fasireen culimmadu alfiraaru min alkufri ila shirk min alkufri ila shukri in laga cararo ilaahay nicamkiisa oo lagu kufriyo oo loo cararo ilaahay tabaaraka wa tacaala nicamkiisa oo laga shukriyo wixii ilaahay ku siiyo tabaaraka wa tacaala inaad ku aqoonsato isagana u aqoonsato af iyo adinna ka shukrido taasi waxay ka mid tahay carar ilaahay loo cararay inaad nicmooyinkiisa ku kufrido oo sida la rabo aad uga mahad celin weydana waa carar aad ilaahay ka carartay tabaaraka wa tacaala allana qur-aanka kariimka wuxuu ku leeyahay maa yafcalu allahu bicadaabikum in shakartum wa aamantum wa kaana allahu shaakiran caliima allah muxuu ku samaynayaa cadaabkiinna haddaad shukridaan oo aad rumaysaan haddii shukri laydinka helo nicamka aad ka shukridaan allana aad rumaysaan macnaheedu waxa weeye idinma cadaabayo waid ta'adana rabbukum lain shakartum la'asiidannakum walain kafartum ina cadaabii la shadiid allah wuxuu addoommadiisa ogeysiinayaa haddii aad shukridaan oo nicmooyinku idin siiyey aad ka mahad celisaan waan idin siyaadin buu alla yidhi tabaaraka wa tacaala haddaadse kufridaan oo nicamkii aad ku jisaartaan ood ka mahad celin weydaan cadaabkaygu waa daran yahay buu alla yidhi tabaaraka wa tacaala waxaa ka mid a inaad naftaada ka cararto ood ilaahay u cararto tabaaraka wa tacaala naftu waa sharley sida rabbi qur-aanku ku sheegay ina annafsa la ammaaratun bisuu'i ilaa maa raxima rabbii naftu waa mid amrid badan oo xumaanta aad u amarta ilaa cid alla u naxariistay mooye marka naftaadaad ka cararaysaa ilaahay baadna ku cararaysaa tabaaraka wa tacaala saas daraaddeed baa nabigeenna ducadiisa waxaa ka mid ahayd acuudu bika min shari nafsi wa min shari shaytaani wa sharaki ilaahu waxaan kaa magangelayaa naftayda sharkeeda waxaan kaa magangelayaa shaytaanka sharkiisa iyo dabinkiisa marka inaad naftaada ka carartood ilaahay u cararto wax kale iska badaaye naftaadii oo sharka badnayd oo macaasida ku faraysay
oo khayrka kaala dagaalamaysay ayaad ka cararaysaa oo waxaad ku cararaysaa oo sharkeeda ka magan galaysaa oo kaga cararaysaa Allah tabaaraka wa ta'ala macaanida aayadda quraanka lagu fasiray bay kamid tahay oo sida Amr ibn Uthman la yiraahdo u leeyahay culimada kamida al-firaru min an-nafs ila ar-rabb bule waxa kamida al-iltija'u ila Allah wal-i'timadu alayhi fi al-umur inaad ilaahay tala saarato oo arrimahaaga dhamaantood ilaahay u dhiibato tabaaraka wa ta'ala kuna kalsoonaato ayadana quraanka kariimka buu Allah tabaaraka wa ta'ala ku tilmaamay waman yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh cidii ilaahay tala saarato hawsha u dhiibato ku kalsoonaato isaga ku filan macnaha ibn kathir baa ku fasiraya aayada fafirru ila Allah wuxuu leeyahay ilja'u ilayhi wa'tamidu fi umurikum 'alayhi isaga Allah tabaaraka wa ta'ala magan gala oo isaga u carara oo tala saarto arrimihiina u dhiibta buu leeyahay xadiidka Abdullah ibn Abbas wuxuu ahaa Bukhari uu soo saaray hasbunallahu wa ni'mal wakiil qalaha Ibrahim hina ulqiya fi an-nar وقالها محمد حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا الله نغفلا مد لتلا صارتنا أسقا أفي عن كلمة النبي إبراهيم بايري مركي دبك لغو توري عيدك لو لغو عرر ماله وكليجي إلهي با يغفلا بوري تبارك وتعالى نبي محمد مركي قال كوي لهذين وليسوكين تغيي وليسوكين يمد وقالوا لما يسوكين أرورستي وحو يري حسبنا الله ونعم الوكيل إلهي بان نغفلا marka inaad ilaahay tala saarato oo ilaahay tabaaraka wa ta'ala hawshaada u dhiibato ku kalsoonaato ayadana waa carar makhluuqa laga cararayo ilaahay lagu cararayo tabaaraka wa ta'ala nabigana salawaatu rabbi wa salaamu alayhi qisadii baad garanaysaan asaga oo nabigu jiifa geed hoosti oo seeftiisi geedka suray ayaa nin gaali dul yimid oo seeftii ula baxay markaas wuxuu ku yiri man yamna'uka minni ya iga ka celinaya yaa iga ka celin kara buu ku yiri markaas nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam Allah ilaahay baa iga ka celinaya nabigu waa jiifa seeftiyo galku ka siiban tahayna korkiisu saaray inuu ku dhufto raba ilaahay baa iga ka celin buu marka waxa weeye nabiga sallallahu alayhi wasallam seefti baa markiiba ninkii gacantiisa ka dhacday markaasuu nabigu seefti qaatay salawaatu rabbi wa salaamu alayhi intuu qaaday buu wuxuu yiri man yamna'uka minni adiga yaa iga ka celinaya hadda markaas wuxuu yiri kun khayra aakhidin محمدو نين سيف قادا نينكي ugu khayr badnaan noqo iska kay saamaxo iska cafi nabigu waa cafi salawaatu rabbi wasalaam alayh marka man yamna'uka minni Allah wa ilaahi ina tala saarato hawshaada u dhiibato ku kalsoonaato waa kugu filan isaga lagu carara waxa kamida inaad la cararto diintaada oo la hijrooto oo diintaadu meeshay khatarta ku galayso kala cararto meeshii aad yaani ay ku nabad galaysana aad ula cararto taasina waxay kamid tahay al-firaru ila Allah wa firru ila Allah sida uu ku tusay xadiidka Ataa ibn Abi Rabah wuxuu leeyahay Aisha ayaan siyaartay radiyallahu anha waxaana ila socday in la yiraahdo Ubayd ibn Umayr al-Laythi ayaa ila socday markaasaan weydiinay buu aan hijra hijradan ka warsanay markaas waxay tiri la hijrata al-yawm maanta hijra ma jirto kana al-mu'minuna yafirru ahaduhum bidiinihi ila Allah waagi hijradu ay bilaabatay waxay ahayd ruuxa muuminka diinkiisa la cararayo ilaahay xaqiisa ula cararaya iyo ila rasuuli makhafata an yuftana alayhi absi uu ka baqayo baqdin uu ka baqayo in diintiisa laga fidneeyo darteed buu diintiisa ula carari jiray taasi hijradu ahayd fa amma al-yawma faqad adhara Allahu al-islam maanta se ilaahay baa islaamkii muujiyay oo kor yeelay yaani ruuxa muuminka meeshuu doono ilaahay ku caabudi kara waxaase jirta bay tiri jihaad iyo niyad jirta sidaas daraadeed baa nabigu sallallahu alayhi wasallam aakhiru zamaanka wuxuu ku tiriyay labada ruux ee ugu khayrka badan aakhiru zamaanka markay fitan ku dhacaan waxa kamid ah nin xool xanyaro ari ah yaani ku raacanaya buuraha korkooda iyo meelaha roobku ka da'o oo meesha ilaahay ku caabudaya diintiisana fitanka kala cararay ninkaas kamid ah laba nin oo ugu khayr badan aakhiru zamaanka markay fitan ku dhacaan yafirru bidiinihi min al-fitan diintiisu fitnada kala cararaya marka ruux markuu diintiisa la hijroodo oo diintiisa la cararo oo sida inagu hadda ilmaha iyo caruurta iyo xoolaha iyo nafta aan ula cararno oo meel nabadgeliyada aan ula raadsano sidaas oo kale diintiisa la cararo meel ay ku nabadgelaysiyo meesha u roon ula carara kaasi waxay kamid tahay al-firaru ila Allah tabaaraka wa ta'ala
marna waajib laazimay noqotaa marna sunnay noqotaa yacni kolba xaalka iyo duruufta ruuxa ayay ku xidhan tahay iyo sida uu heli karo meel uu hijroodo intaasi waxaynu ku daraynaa fafiruu ila allahi macaanidaa faraha badanba culimmadu way ku fasiraane wayna soo gelaysaa iyo macaani kaloo ka tira badane alxaafid ibnulqayim caleyh raxmatullah wuxuu tilmaamayaa kitaabkiisa madaariju saalikiin wuxuu ku sheegayaa manaasil iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin markuu tilmaamayo waxaa ka mida buu yidhi mansilatu lfiraar yacni waxa weeye iyaaka nacbud wa iyaaka nastaciin baa waxay leedahay manaasil iyo darajaadkeeda waxaa ka mida mansilatu lfiraar yacni martabad la yidhaahdo carar ilaahay loo cararo tabaaraka wa tacaala markaasuu aayadda keenay fafiruu ila allah xaqiiqatu lfiraar marka wuxuu yidhi alharabu min ashay ila shay waa inaad shay ka cararto shay ku cararto waana laba nooc buu yidhi ibnulqayim caleyh raxmatullah nooca koobaadi waxa weeye waa firaaru sucadaa nooca labaadna waa firaaru lashqiyaa dadka liibaanay cararkooda iyo dadka nasiibka xun cararkooda labadaas wey fa firaaru sucadaa alfiraaru ila allahi caza wajal dadka liibaanay adduuniya aakharaba cararkoodu waa xagga alle dadka musiibadu ku dhacday ee dhur darsaday ee khasaarayna cararkoodu alfiraaru minhu laa ilayhi waa ilaahay xaggiisa uma cararaan isagay ka cararaan markaasay waxaan waxba moodaynin ay u cararaan mathalu aladiina ittakhaduu min duuni illahi awliyaa kamathali alcankabuuti ittakhadat bayta wa ina awhana albuyuuti la baytu alcankabuut low kaanuu yaclamuun yacni waxaan ilaahay ahayn cidda u cararay ee ilaahay intuu ka cararay meel kale u cararay ee wax moodaya inuu ku nabadgelayo wuxuu la mid yahay sida rabbi tilmaamay tabaaraka wa tacaala sida baashan layidhaha caarada gurigeedoo kale nin ku hoos gabanaya oo doonayo inuu meeshaa ku badbaado oo dhibicda iyo khatarta iyo cadowga iyo halaqa iyo kaga badbaado guri la dhisana guriga caarada ayaa ugu daciifsan buu alla yidhi tabaaraka wa tacaala guri caaro muxuu kaa celin qorax kaa celin maayo oo dhibic roob kaa celin maayo oo khatar kaa badbaadin maayo nin meeshaa ku cararay buu la mid yahay nin ilaahay ka cararay subxaana wa tacaala marka dadna ilaahay bay ka carareen waa dadka xadhiggiisa gooyey oo daacadiisa gooyey oo waajibaadka dayacay oo macaasida galay oo adduunyada raacoo shaydaan u kaxaystay dadna ilaahay bay u carareen tabaaraka wa tacaala waa dadka aan tilmaamahooda soo tilmaanay sidaasuu ibnulqayim caleyhi raxmatullaahi uu tilmaamaya kitaabka kitaabka la yidhahdo almanaasilka imaamka iska leh ayuu ka soo warinayaa markaasuu ka sheegaya wuxuu leeyahay wuxuu ku fasiray firaarka alharabu miman lam yakun ilaa man lam yazal waxaa la yidhaahdaa inaad cararto oo aad ka cararto waxaan jiri jirin oo dib ka yimid ood u cararto cid weligiiba jirtay yacni cidaan jiri jirin waa makhluuqa oo dib laga abuuray kuwaa ka carar waxaad u carartaa ilaa man lam yazal cid weligiiba jirtay jiridna doona oo allah tabaaraka wa tacaala markaasuu wuxuu u qeybiyey 3 darajo firaaru alcaamati min aljahli ila alcilmi caqdan wa sacyan yacni dadka yacni caamada dadweynaha cararkooda ay jahliga ka cararayaan ooy cilmiga u cararayaan iyo camalkiisa iyo alfiraaru min alkasali ila altashmiir wahsiga iyo isdhigashada inaad ka cararto oo aad u cararto inaad yacni wax weeyaan dadaasho oo aad marada xaydato oo aad shaqo iyo dadaal gasho inaad yacni wax way u cararto isdhigashada iyo wahsigana aad ka cararto wuxuu ku gebagabeeyey wa min addiiqi ila asacati hiqatan wa raja'an inaad ka cararto cidhiidhiga laabta iyo noloshoo cidhiidhi kugu noqota iyo inaad isla hadasho iyo stress inuu kugu dhaco iyo inaad yacni xanuunno kugu dhacaan cidhiidhiga inaad ka cararto oo aad u cararto sacada u cararto yacni iimaanka sacadiisa nuurka waasacnimadiisa xasiloonida qalbiga deganaanshaha nolosha oo dareento inay nolol macaan tahay tii aakharoo ka sii macaankaasi inaad u gudubtood ka baxdo cidhiidhigan qalbigaaga iyo noloshaada haysta ayaa iyadana waxay tahay cararka darajadiisa saddexaadoo inaad ka cararto cidhiidhiga laabta una cararto sicada iyo waasacnimada laga helo iimaanka iyo rumaynta iyo taacada rabbi tabaaraka wa tacaala ma sii wadi karo oo waqtiga ayaa iska gaaban kelimada fafiruu ila allah innii lakum minhu nadiirun mubiin
fawaa'idda aad ka helaysa waxa weeye ilaahay ridihiisaad ku heli iyo jannada naarna waad ka badbaadaysaa macaasida iyo waxyaalaha shubahaadka iyo shahawaadka ayaad ka badbaadaysaa waxa inaad diintaada lunto ama adduunya inay ku qaadatiya macmacaankeeda iyo dhalaalkeeda ayaad ka badbaadaysaa xagga rabbi haddaad u cararto qalbigaagaa daahir noqonaya naftaaduna saafi bay noqonaysaa waxyaalaha helel waxaa ka mid a khalqiga rabbi tabaaraka wa tacaala mucaamaladoodaad hagaajinaysaa waxaa ka mid a maalan waxaad dareemaysaa noloshaada liibaan iyo farax iyo deganaansho iyo xasilooni baad dareemaysaa nolol iftiimaysa oo macaan ayaa kuu noqonaysaa noloshan adduunyada intaad nooshaha laabtaada ayaa waasac noqonaysa waxaa ka mid a adduunyadii iyo yacni waxa weye bahjadeeda iyo yacni ma'aahirteeda iyo macaankeeda iyo zakhaarifteeda ayaan ku lugoynaynin oo quruurkeeda iyo kadadeedaad ka badbaadaysaa shay kasta oo dhibaato leh ayaa dhibaatadiisa ilaahay tabaaraka wa tacaala kaa xifdinaya shaydaanka nafta jahliga macaasida kufriga waxyaalahaasi halista leh ee ruuxa mustaqbalkiisa adduuniya mid aakharaba dhibaato u geysta ayaad ka badbaadaysaa markaad ilaahay u cararto tabaaraka wa tacaala marka fafiruu ila allah war ilaahay ha loo cararo oo noloshan maanta aynu ku nool nahay nolol dhib leh oo kadeed leh oon ku rafaadsannahay oon qaxooti ku nahay oo deganaansho la'aan ah oo muxuu ahay xamaal oo maxaa caafimaad darro ah oo maxaa muxuu nabadgelyo darro ah nolol waxaynu ku nool nahay adduun gebagaba ah noloshiisii baynu ku nool nahay nolosha noocaasa waxaa la doonayaa yacni mawjadaheeda iyo badaheeda iyo khataraheeda doonta aad kaga dhex baxaysa inay noqoto fafiruu ila allah ilaahay tabaaraka wa tacaala xaggiisa u carara doontaa raac si aad yacni waxa weye barul amaan ugu baxdo oo meel nabad ah iyo meel wanaagsan iyo deegaan wanaagsan iyo naxariis rabbi iyo ridihiisa iyo noloshan intaad nooshahayoo ilaahay tabaaraka wa tacaala uu qalbi degan iyo nolol uu ku siiyo intaba waxaad ku gaadhi kartaa fafiruu ila allah marka ilaahay aanu cararno ilaahayna tabaaraka wa tacaala hayna xifdiyo allaheenna yaynaan ka cararin daacada yaynaan ka cararin tawxiidka yaynaan ka cararin yacni waxa weeye wanaagga iyo khayrka yaynaan ka cararin masaajidda iyo maraakista yaynaan ka cararin culimada iyo cilmiga yaynaan ka cararin meeshii aynu wanaagga ka heli lahayn iyo khayrka yaynaan ka cararin aakharadeenna iyo wixii inoo hagaajin lahaa yaynaan ka cararin xidhiirka rabbi tabaaraka wa tacaala iyo wanaajintiisa yaynaan ka cararin ilaahay yaynaan ka cararin ilaahay aanu cararno tabaaraka wa tacaala fafiruu ila allah innii lakum minhu nadiirun mubiin kelimadii intaa ayaan ku gebagabaynaynaa ilaahayna tabaaraka wa tacaala waxaan weydiisanaynaa biasmaa'ihi alxusnaa wa sifaatihi alculyaa inuu ilaahayna xifdiyo oo intaan adduunka joognana na xifdiyo aakharana qabriga iyo qiyaamada naga xifdiyo ahwaashooda iyo dhibaatooyinkooda ilaahay tabaaraka wa tacaala uu naga xifdiyo siraadka korkiisa nagu xifdiyo oo jahannamo korkeeda rabbi tabaaraka wa tacaala marka la marayo sharkeeda iyo dhibkeeda naga xifdiyo ilaahay nafteenna sharkeeda haynaga xifdiyo oo adduunyadiiyo sharkeeda allah haynaga xifdiyo oo shaydaan iyo sharkiisa allah haynaga xifdiyo oo kuwa xagga ilaahay u carara allah haynaga dhigo ilaahay khaatumo wanaagsan haynagu dilo nebiyada iyo sidiiqiinta iyo abraarta iyo shuhadadana allah haynala soo saaro ilaahay tabaaraka wa tacaala meesha aad joogtaan iyo meeshaan joognaba allah inagu ilaaliyo carruurta iyo ehelka iyo nafta iyo diinta iyo intaba ilaahay inoo ilaaliyo tabaaraka wa tacaala jazaakum allahu khayran wabaaraka fiikum wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu